soo dhawaada asxaabta magacaygu waa Maxamed Nabiil dalka Japan waa mid aad u cajiib ah wax badanna waan idinkaga sheegnay waana wadan dadkiisu aad u shaqeeyaan waqtigana ilaaliyaan dhaqankoodana aad ay ugu dhagan yihiin marka laga hadlayo dhanka madadaalada dadka wadankaas qaarkood aad ay u jecel yihiin barankiska waxayna hal abuuraan fikrado aan caadi ahayn si ay u sameeyaan barankiyo dad badan ka yaabsada waxaana jira TV laga sii daayo barnaamijyada si dadku madadaalo uga dhigtaan haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah kuwa ugu qosolka badan intaan u gudagelin haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan aynu bilowno midka ugu horeeya godka wiishka dad aad u badan oo dunida ku nool ayaa aad uga baqa in ay raacaan wiishka waxaana jira sababo kala duwan iyagoona ka doorbida in ay koraan jaranjarada sababtoo ah waxa ay ka baqaan in ay ku xanibmaan wiishka ama uu la soo go'o isagoo meel sare la maraya haddaba barankigan ay sameeyeen qofka aan ka baqin xitaa wiishka waa naxaya qofka lagu sameeyo mid ka mid dadka wax ka og ayaa soo wadaya markuu uu galo wiishka albaabkana uu xirmo meeshii uu ku taagnaa qofka ayaa la dumaysa dadku markay ku soo dhacaan godka kaamirooyin kala duwan ayaa duubaya slow motion ama si tartiib ah ayuuna muuqaalku u soconayaa si qofka loo ogaado falcelintiisa wax dhibaato ahna ma soo gaarayaan qofka sababtoo ah meel aan wax dhibaato ah u geysanayn ayuu ku soo dhacaa biyaha wadamo badan oo ay Japan ku jirto waxa ay leeyihiin meelo caam ah oo dadka ay biyaha ka cabaan tubooyinkaasi biyaha laga cabo ayaa laga helaa meelo badan sida wadooyinka iyo meelaha kale ee la midka haddaba waxa ay keeneen fikrad tubooyinkaasi dadka loogu sameeyo baranki meesha biyaha laga cabo ay ku xireen kaamirooyin sidoo kalena waxay isbedel ku sameeyeen xawaaraha biyaha oo markii hore qofku marka uu rabo inuu biyo ka cabo afkiisa ayuu u soo dhaweynayaa biyahana si tartiib ayuu cabaa laakiin isbedel ayay ku sameeyeen oo qofka markii uu furaba biyo xawli ah ayaa ku dhacaya waxayna biyuhu kor gaarayaan ilaa 7 mitir natiijooyin kala duwan ayaana ka dhashay dadkii islahaa biyo meeshan ka caba dhulka xanjada ah haddii barankiga biyaha uusan kaa qoslin bal midkaana fiiri waxa ay meel wada ah oo dadku ay maraan ku gogleen wax roog camal ah oo qofkii ku istaaga ku dhigaya dad kala duwan ayaana meesha soo maray bal fiiri wixii qabsaday dadka qaarkood kabaha bis ayaa kaga dhigay meesha halka midka ugu darana inta ku faytintiisa xitaa meeshii ku dhagtay dadka ordaya ka waran maxaad sameyn lahayd adiga oo wada maraya kaliga haddii ay ka hor imaadaan ku dhawaad 30 qof oo ordaya kana yimaadeen meesha aad u socoto qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag waxa aad sameyn lahayd haddaba barankigan wuxuu ku saabsan yahay sida dadka aan waxba ogeyn ee lagu sameynayo barankiga waxa ka hor imaanaya dad badan oo ordaya kuwa way la ordayaan kuwana gees ay wadada ka istaagayaan iyagoo yaaban fiirinta libaaxa dadka barankigan lagu sameynayo waxa laga dalbanayaa in sawirkan libaaxa ay fiiriyaan kana soo saaraan waxyaabaha qarsoon ee ku jira inta uu fiirinayo qofka ayaa gadaal qof kale ka soo riixaya wuxuuna ku soo dhacayaa qol kale oo libaaxii saxda ah uu joogo waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada